رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، باب السنن الفطرة. فطرة السنن كريه باب يهي. فطرة وكان صور شيخنا حلي معاني كلا جديد سنبي علماء كشيغيان، لكن waxay isugu taqriiban isugu imaanaysaa waa arrimo wanaagooda ilaahay tabaaraka wa tacaala ibn aadamka uu ku abuuray, qalbigiisana uu geliyey, sharaa'icduna ku soo degtay, lana kala dhaxlay oo ambiyadii iyo rusushii iyo saalixiintii iyo kulli loo kala dambeeyey way macnaha. طيب sharaa'icduna dhammaan ay la timid kadibna arrin jibilli ah oo qariisada ibn aadamka wanaageeda ilaahay tabaaraka wa tacaala uu geliyey, arrimahaas fitrada la yidhaahdo. can abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi waalihi wasalam, rasuulku wuxuu yidhi khamsun shan ay khisaal waay, shan arrimood min alfitrati bay ka mid tahay, waxyaalaha wanaagsan ee diinka ah ee ilaahay tabaaraka wa tacaala wanaagooda ibni aadamka uu qalbigiisa geliyey ayay ka mid tahay. alistixdaadu weeye ka hore in timaha gumeerka la xiiro, alistixdaad. waalkhitaan weeye ka labaad guditaanka. wa qasu shaaribi shaarubtoo la gaabiyo. wa natfu libti kilkisha oo timaheeda la tifo, yacni la jaro. wa taqliimu aladfaari iyo ciddiyahoo la gooyo. waxaa wariyay aljamaacatu, shantii baa warisay. waxaan dhihi lahaa aljamaaca, kooxdii baa warisay. ayib, istixdaadka waxaa la yidhaahdaa sida riwaayada muslimba ay ka cabirtay xalqulcaana la yidhahdaa, timaha ka soo baxa xubinka taranka korkiisa iyo hareerihiisa oo la xiiro ayaa la yidhaahdaa istixdaadka. waxaana laga keenay kelimada iyada ah min alxadiidati baa laga keenay, yacni waa aaladii loo isticmaalayo waa birta loo isticmaalo ayaa asalahaan laga keenay, laakiin macnaha waxaa laga wadaa timaha meelaha ka soo baxa in la xiiro ayaa laga wadaa macnaha. ayib, xiritaankoodu marka fitradu ka mid yahay, sida loo badan yahayna inay sunno yahay waa mustaxab yahay. waxaa lagu xirayaa marka xiriddu iyo jaridda iyo shayka gooyo sida nuuradda isticmaali jireen waagii hore, inta waa loo isticmaali karaa. haddana kareem iyo waxaa loo isticmaalaa. si loo isticmaalaba in la zuuliyo way muhimaddu macnaha, aduu waxaa doonto u isticmaalo. ayib, talabaadna waxa weeye alkhitaanu. waa khitaanku waa guditaanka weeye. baab gooniyuu ku keeni doonaa insha allahu tacaala. waxaana laga wadaa ragga marka la yidhaahdo waa in buuryada la gooyo. waa buuryada waxaa ka hooseeyana uu bannaanka u soo baxo. amaa dumarka waxaa la yidhaahdaa xubinka qadarka ugu sarreeya baarinta diigoo kale leh u eg in qadarka ugu yar laga jaro, jildadaasi in qadarka ugu yar la taabtoo laga jaro ayaa la yidhaahdaa gudniinka dumarkana. waana u tegi doonaa insha allahu tacaala khitaanka iyo axkaamtiisa baab gooniya u samayn doona. wa qasu shaaribi waa shaarubta gaabinteeda, waa ayadana baab gooniya u samayn doonaa. wa natfu libti kilkilada oo la tifo. natfiga waxaa la yidhaahdaa in aan lagu xiirin ama sakiin ama shay lagu xiirine gacanta intaad ku qabato gacanta ku jarto oo aad tifto ayaa la yidhahdaa macnaha. ayib, waa sunnay culimmada badankood qabaan,
sida afdalka ana wuxuu leeyahay imaam nawawi calayhi raxmatullah waa natfigaas in la tifo hadduu ruuxu kari karo way hadduusan kari karin inuu ku adkaatana inuu xiiro ama shay kaloo zuuliyo uu isticmaalo ama kareem ha noqoto iyagu nuurad bay bedelka isticmaali jireen ayaduna dhib male buu leeyahay والتقليم الأظفار عديها أو لقويه عديها شريطان كودو إذن والسنة جماهير علماء قبان تقليمكم من القلم ما لكن هو القطع وقوين توي معنا وعن أنس وحلقوا ابن مالك رضي الله عنه قال وحولي وقت ولا وقتي لنا أنك في قص الشارب شاربت قابين تيدا iyo wa taqliim al-adfaar iyo cidiyaha goyntooda iyo wa natf al-ibt iyo kilkilada tifideeda wa halq al-aanati iyo timaha gumeerka xiiritaankooda inta waxa naloo waqtiyay oo yaani loogu mudeeyay alla tutraka inaan laga tagin akthar wax ka badan min 40 layla 40 habeen yaani waa loo mudeeyay mudda loo qabtay waxaana loogu mudeeyay 40 bari ka badan inaan la daynin oo 40 bari wixii ka badan in la daayo meesha loo daayay ay mamnuuc tahay macna طيب waqta markuu leeyahay sidaas ayaa muslim iyo qeyrkii warinayaan oo waana loogu waqtiyeeyay ama waa naloo xadiday waay cidii u xadiday muusan sheegin yaa waqtiga iyo xadiidida qabtay siiqatu majhuul waay marka laakiin siday jamaahiirtu qabaan saxaabigu hadduu waqta iyo umirna iyo hadduu yiraahdo waxa la yiraahdaa waa marfuucun hukman la subhanahu laana cid kale tawqiid iyo tahdiid iyo amar iyo samayn karto shariic aan ahayn ma jiro sidaasayna inta badan u isticmaali jireen macna رواه وري مسلم باوري وابن ماجه ورواه وحوري أحمد باوري والترمذي والنسائي وأبو داود وقالوا وحين يلهذين رجني قرضا ضمبوه فيه حديث كدحديث وحي يلهذين وقت فيه أي عن أنس واي فيه عن أنس يو كورنا قال أنس وحوري وقت لنا ونو وقتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها نو وقتي ومعناها نو مدي أما نو حددي طيب قرأوا مسلم ابن ماجه يوحي كوريان وقتا صيغة للمجهولة وعدة وقتك قوتي أن للشيء رواية أحمد الترمذي النسائي أبو داودنا عدة وقتي يسيبه شيكتيو وقت لنا رسول الله صاصي يقول بدلين طيب تنضم بمرك ورفعك الصريحة وقت لنا رسول الله وضعيف sanadkeeda waxa ku jira in la yiraahdo sadaqatu ibn Muusa oo saduq lahu wahama dacfi ba ku jira isagoo dacfi ku jira hadana wuxuu khilaafay in la yiraahdo Jaafar ibn Sulaymaan oo isaga laftiisa dacfi ku jiro laakiin isaga dhaama oo waa ninka wariyay lafdiga hore ee waqita ninka wariyay baa ka xoog badan ninka wariyay waqata lana saas daraadeed ba al-Imam Abu Daawud alayhi rahmatullah wuxuu rajaxay riwaayada dhahaysa waqita وهي الأصح iyadaa saxiixnimo badan macna wuxuu tilmaamayaa waqtadu oo laga dhigo marfuuc sariixa laga dhigo dacfi baa ku jira saas macna laba gooraba muaddaha iyo maqsuudku isku meel buu imaano waqta lana hadii la yiraahdana waa rafci sariixa waqta hadii la yiraahdana waa rafci hukmi aw laba gooraba xadiisku waa marfuuc macna wuxuuna faa'iideynayaa in muddadaasi muddo ka badan aan la dayn karin arrimahani inay meesha ku siyaalaan shaarubtu inay ku taalo meesheeda cidiyuhu inay meesha ku yaalaan kilkilada inay timuhu isaga yaalaan gumeerka timaha ku yaala iyagana inaan la xiirin al-Imam Nawawi alayhi rahmatullahi wuxuu leeyahay maqsuudkuna waxa weeye muddada lama dhaafin karo ama muddada wixii ka yar ka hooseeya waxay ku xidhan tahay xasabul haaja maaha in muddada lala sugo oo la yiraahdo muxuu 40 inta laga gaarayo weeseekay ooleysa waxay ku xidhan tahay muddada wixii ka yari inaad u baahato haddii muddada ka yar cididu kugu dheeraato inaad iska goyso haddii timuhu kugu baxaan waa inaad iska jarto waxa laga wadaa inta ka badan 40 wixii ka siyaasan lama dhaafin karo maqsuudku waa sida بعض أهل العلم waa sida si ka gadisan laakiin xadiidka u fahmay
وعن زكريا بن أبي زائدة علماء قاربانا سيدا قبو توقيت كاسي نبي قد لغي صلوات ربي وسلام عليه وحي كسياسة ودافين تيض والتحريم بليه وحرام قارن وحي إليه هنوية وكدو ذي دلالة حديثك ومعناها كتصي. وعن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عبد الله بن الزبير وعن عائشة رضي الله عنها قال ذحيتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول كحوري 10 طبعا من الفطرة بكمده طبعا الرموت فطرة بكمده يا أبا ونوناكسن يا أنبياء الرسول صلى الله عليه وسلم وانا قودنا إلهي قلبي وكو أبو ابن آدم أي كمده وحيهين قص الشارب شاربته لقابيه وإعفاء اللحية قدك أول عفيه إعفاء لما يسترد كامل يريد بمعنى إن لدايو سيدي سلقو داي والسواك ويك سدحان وعضى يشده واستنشاق الماء متك أفرادنا وبيها أو سنك اللقو تشيدو استنشاق يعني مركا لو يسيسانا يو إن بيها سنك حوق لو قليو قدها لقليو لأنه سيدو النبي صلى الله عليه وسلم قدها هوسي يبعرارك أيها الشيطان كبرياه marka timahaas mid kale biyuhu waa nadiifinayaan sanka markay galayaan wastinshaqul maa'i ba kamida biyaha oo sanka la galiyo wa qassul adfari iyo cidiyaha oo la gaabiyo riwaayadu waxay tiri taqlimul adfar bitri sooma waa jarida qassiguna waa gaabinta isma diidayso hadaad gaabisana waa okay hadaad salka ka martana okay dhimad وغسل البراجم ومد كله غسل البراجم فرها حبنه هذا لا دقه براجمته وجمع برجوه وجمع برجمه برجمدنا waxa la yiraahdaa عقد الاصابع ومعاطفها فروه meeshay ka laabmaan faraha xubnahoodu soo meel ay ka laabmaan ma jiraan meelaha ay ka laabnaan xubnaha baa la yiraahdaa براجم ليلهذا مفرد كنا وبرجمة صاصي معنا مركز دقيتان كودو بمعنى واحد لجوده أو مركز ويسيسنيسو أو مركز كعمها دقنيسو إن أتسي خاصة أردقضه وددال جوني منان خاصة أتسيسو ميلها فروه كلامنان إن أردقضه أيقلف تودو ما دام أيهين معاطف ميل وشيدكو كلامه وحيقو بدن تهي وحباق على وسخي وحباقش مركز عناية خاصة لسي أما الروح مركو ويسيسنيو baa laga yaabaa haddaan si fiican loogu dadaalin inay weysadii ay biyihii ayna gaadhin sooma على هذا الأساس بأمرك اللولي هي منانت الله الصيني وغسل البراجم فرها حبنه هذه ماشي كلا مان أو لدقه ونطف الإبط كالكلادة أو تمه هذا اللطفه أو لجويه وحلق العانة تمه الجميرك أو لتشر أو لحيره وانتقاص الماء يبيه له استجاد يعني وحكوذا الاستنجاء أبو كوذا انتقاص بمعنى الاستنجاء سيدا وحكوف السري وكيع من الجراح هي علماء كانوا علماء الحديث كم إذا يلغى قال زكريا وحوري يعني حديث كديب مركز سنة كوينوش شيء أوفيرسته زكريا بن أبي زائدة زكريا بن أبي زائدة أيا وحكورنا يا مصعب بن شيبة صومه قال زكريا وحوري قال مصعب وحوري أو شيخ ساء ونسيت وحن هالمامي العاشرة تيتوب نادوان هالمامي إلا أن تكون إني تهيب مويه المضمضة لغلق الشذ يعني وحوليه هاي أنيقو أو مصعب يا هالمامي إلا انطبان بأيه صمه 10 من الفطرة صمه سقال بوشي تيتوب ناد بمركة وحوليه هاي وان هالمامي لكن وحنوما لينا يا إني لغلق الشذ طيب روح وري حديث كاسي أحمد ووري ومسلم والنسائي والترمذي كذلك وحى صوصاري أبو داود ابن ماجه يقولون ويصوصاري وحى تحسيني حديث الإمام الترمذي الشيخ الباني حافظ بن حجر نبو صحيحية لشواهده فتح الباري طيب حي للسنة كيس الضعف باكوتشر مصعب كابن شيبة مصعب كاسا ضعيف وضعف كوتشرة ما دام مصعب وضعف كوتشر السنة كمركة وضعيف لكن حديث كل شواهده هو حسن كويه مركة وسجين حديثكم يعني قيبة كم إذا وحبلي شواهد في الصحيحين غير كتكتم لكن سياق هذا وسدا كويمت يعني سند كيس ضعف باكوتشرة واسس حسن كحديث أهان معنا
baabun fi lkhitaani intaa marka waxa weeye khisaashii fitrada oo uu koobay waa dhowr mas'ale ayuu si gooniya marka u saari doonaa oo mudnaan u siin doonaa sheekhu baab u samaynaya baabun wuxuu baab u yahay baabun fi lkhitaani guditaankii ayuu baab u yahay waa masdaru khatana guditaan ama wuxuu noqon karaa meesha la guday ee la jaray ayadana khitaan waa la yidhaha ida altaqa alkhitaanaani faqad wajaba alghuslu min xadiidkii muslim ida altaqa alkhitaanaan khitaanka waxaa la yidhahdaa meesha birtu martay ee la jarayna waa la dhahaa jaritaanka iyo guditaanka lafteeda ficilkana waa lagu iطlaaqa saas way macana ayib can abi hurayrata radi allahu canhu ana nabiya nebigu sala allahu calayhi waaalihi wasalama qaala wuxuu yidhi ikhtatana waxaa isguday ibraahiimu ibraahiim baa isguday khaliilu araxmaani allaha araxmaana midkuu jeclaa ahaa bacdamaa atat markay timid kadib calayhi korkiisa 80 sana 80 sano markay korkiisa ku yimaadeen oo soo mareen oo 80 sano ay mareen kadib ayuu isguday wakhtatana wuxuuna isku guday bilqaduumi aalada qaduumka la yidhaah muttafaqun calayhi ilaa laakiinse anna musliman muslim lam yadkur muusan sheegin assiniina sannadaha muusan sheegin yacni bukhaari iyo muslim iyo axmed baa soo saaray iyo kayrkood laakiin riwaayada muslim kuma jirto bacdamaa atat calayhi 80 sana kuma jirto ikhtatana ibraahiimu khaliilu araxmaan wakhtatana bilqaduum riwaayada muslim tirada sannaduhu way ka baxsantay laakiin bukhaari iyo axmed iyo kayrkood baa yaa ku daray macnaha qaduumka waxaa la yidhaahdaa laba macnay culimmadu qaar ku fasiraan aalatu najaar waa la yidhahdaa midka alwaaxda ka shaqeeya ee qalabka uu alwaaxda ku googoosto gudunta iyo faaska iyo waxyaalahan waagii hore isticmaali jireen waa la yidhaahdaa waxaa kaloo iyadana lagu itlaaqaa culimmada qaarkood ay leeyihiin qaduumka waxaa laga wadaa meel magaceed waaye oo meeshii nebi ibraahim markuu isgudahayay uu joogay baa qaduum la dhihi jiray macnaha horaxa ka xoog badan oo laga dhigo aaladii uu isku guday ee uu isticmaalay in laga wado ayaa xoog badan ayib xadiidkaasi waxaa deliishaday culimmada jumhuurtooda oo waxay u deliishadeen in guditaanku uusan wakhti lahayn oo xilliga ruuxu yar yahay keliya aan la gudayno xataa hadduu weynaado in la gudayo wakhti mucayanana uusan lahayn waxaa kaloo deliishaday xadiidkan culimmada qabta guditaanka inuu waajib yahay waxayna ka deliishanayaan nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam 80 sano kadib inuu isgudaayey mashaqo iyo dhib aan sahlanayn baa ku jira laanna ragga waaweyn gudidooda iyo ilmaha yarkaa guditaankoodu way kala dhib badantah soo ma xubinkii baa adkaaday goyntiisu markaa waa mashaqo aan caadi ahayn ma sahlana haddana maca daalika xilligaasuu nebiyullaahi ibraahim jaray oo isguday allana tabaaraka wa tacaala nebigiisa wuxuu ku yidhi uma awxaynaa ilayka an ittabic millata ibraahim nebiga waxaa loo waxyooday nebi ibraahim diintiisii raac aayaddii kalena waa tii ahayd ulaa'ika aladiina hada allah fabihudaahu muqtadih nebi ibraahim baa ka mid ah kuwaasaa ilaahay hanuuniyey hanuunkoodii ku dayaalay nebiga sal lla alay slam marka maadaama nebi ibraahim da'daa uu isku guday nebigeennana ku daya la yidhi waa sharcigeennii marka saas way macnaa sidaas daraaddeed mashaqada iyo dhibka intaa la eg shay sunna ah looma mareen dhibka intaa la eg waxa loo xambaarsadoo loo gelayo waa waajib waay waajib sharci culimmadaasaa deliishaday masaladana waa masale khilaafiya waay ayib masaladaasi waa masale khilaafkeedu uu caan yahay oo guditaanku ma waajiba mise waajib ma aha waan tilmaami doonnaa insha allahu tacala wacan saciid ibni jubayrin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi su'ila waxaa la weydiiyey ibnu cabbaasin radi allahu canhuma oo waxaa lagu yidhi milu man ruuxee oo kale baad anta adigu ahayd xiina goortii qubida la oofsaday rasuululahi sal alla alay wasalam rasuulka markii la oofsaday ruuxee oo kalaad ahayd yacni
da'daadu intee bay ahayd way macnaha qaala wuxuu idhi ana anugu yowmaidin maalinkaasi makhtuunun mid la guday baan ahaa buu yidhi wa kaanuu waxayna ahaayeen laa yakhtinuuna kuwa aan gudin alrajula ninka xataa yudrika ilaa uu qaan gaadho rawa waxaa wariyay albukhaariyu bukhaari baa wariyay ibnu cabbaas waxaa la yidhi wakhtigii nebigu dhimanayay sal lla alay waslam inteed jirtay markaasuu wuxuu yidhi kolley waan gudnaa buuhi caadadooduna waxay ahayd ilaa ruuxu qaan gaadho mayna gudi jir markuu qaan gaadho unbaa la gudi jiray meeshaa macnaha qaangaadh baan ahabu ka wada wuxuu rajaxayaa ra'yiga qaba inuu ibnu cabbaas xilligii nebigu dhimanayay qaangaadh aha culimmada qaarkood waxay leehdeen nahaza albuluuq bay yidhaahdaan wuu ku dhowaaday laakiin ma qaangaadhin bay qaarkood dhahaan ayib waxaa deliishanaya sidoo kale adilada culimmadu jumhuurtu ka mid yahayo ay qabaan laazim ma aha in qaangaadhka ka hor ilmaha la gudo way bannaan tahay laakiin laazim ma aha bay leeyihin qaangaadh wuu ku gaadhi karaa isagoon la gudin wakhti go'an oo shareecadu u sheegtayna ma jiro sidaas daraaddeed cala araajix hadduu markuu dhasho la gudo haddii maalinka toddobaad la gudo haddii laga dibdhigo wax taxdiid oo rasmiya shareecadu uma samayn xadiidkanse waxaa ka muuqata ibnu cabbaas inay saxaabada iyo salafku samayn jireen markuu qaangaadhay inay gudniinka samayn jireen mase keenayso inta ka horraysa in la gudaayey inay mamnuuc tahay lagama qaadanayo macnaha wacan ibni jurayjin waxaa laga warin qaala wuxuu yidhi ukhbirtu waxaa la ii warramay can cuhaym ibni kulaybin ayaa la iiga warramay can abiihi yuu ka warramay can jaddihi can abiihi xaaluu ka warinayo isaguna can jaddihi abkuna can jaddihi awowgii uu ka warinayo annahu isaga jadku jaa'a wuu yimid ila nabiy nebigu u yimid sal lla alay wasalam rasuulka sal lla alay wasalam ayuu u yimid faqaala markaasaa wuxuu yidhi qad aslamtu waan islaamay yacni cuhaym ibnu kulayb awowgii baa u imaanaya nebiga sal lla alay slam markaasuu yidhi waan islaamay qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla alay waslam alqi rid canka xaggaaga shacra alkufri gaalnimada timaheeda iska rid gaalnimada xilligaad gaalka ahayd timihii kugu yaallay iska ridoo iska xir waay yaquulu wuxuu ka wadaa yaquulu wuxuu leeyahay oo ula jeedaa wey axliq fuur yani ixlaq ama axliq yani xiir buu ka wadaa bimacnaa alqida ayuu fasiray alqida macnaheedu waxa weeyaan waa xiir ayib qaala wuxuu yidhi wa ahbaranii waxaa ii warramay aakharu nin kalaa ii warramay macahu la jirankiisa ana الnabiya nebigu sal ly slam qaala inuu yidhi liaakhara nin kale inuu ku yidhi alqi tuur canka xaggaaga shacra alkufri nin kaloo soo islaamay inuu nebigu ku yidhi iska tuur timaha gaalnimada wakhtatin isna gud isgudoo iska goo yani buuryada iska jir rawa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey abu daawuudda iyo abu daawuud baa wariyey xadiidkaasi cuhaym ibnu kulaybin can abiihi can jaddihi xadiidkaasi waa xadiid daciif xadiidkaasi ma sugna dacfigiisana waxaa keenaya ibnu jurayj wuxuu yidhi ukhbirtu cidda u sheegtayna muusan sheegin waa mubham waasidadaasi jahaala ku jirta waa midda labaadee cuhaym nin la yaqaana ma aha aabbihii kulaybna nin la yaqaana ma aha ayib aabbihii kulaybna lama yaqaano bal wuxuu leeyahay yani culimmada qaarkood waxay leeyihiin ibnu jurayj ninka uu qariyey oo uu leeyahay ukhbirtu can cuhaym ee ibnu jurayj u warramay ibni caddi wuxuu leeyahay waa ninka la yidhaahdo ibraahim ibni abi yaxya matruuk buu ahaa waa ninka imaamu shaafici caleyh raxmatullah sheekhkiisuu ahaa imaamu shaafici baa waxoogaa ra'yi wanaagsan ka haystay laakiin muxadisiinta intooda kale daciif buu ka ah bal matruuk buu ah dacfigiisu shadiidi ninka uu ibnu jurayj meesha ku qariyey marka waa ninkaasay leeyihi yuu ibnu caddi leeyahy hadduu ninkaa noqdona sanadku wuxuu noqonayaa daciif jiddan sidaa hadday noqotona ma kabmayo saas daraaddeed waxaan isleeyahay sheekh albaani caleyh raxmatullah oo xadiidka xoojiyey oo taxsiiniyey shaahid dabaraani uu soo saaro sanadkiisu isagana daciif yahay ku xoojiyey ibnu taymiyana ka soo naqliyey inuu xoojiyey oo deliishaday
istidlaalkaasi iyo xoojintaasi ma xoog badna maxaa yeelay xadiidka haddii sanadkiisu daciif jiddan yahay ma kabmo kan kale lagu kabayana sanadkiisu waa daciif sidaas daraaddeed waxaa sawaab ah xadiidkaasi inuusan kabmaynin daciifna yahay saas macnaha laakiin sheekh albani waa taxsiiniyey warka murtidiisa soo ururiye axaadiidtaa waxaa loo deliishanayaa gudniinka mashruuciyadiisa mid lagama doodsana rag iyo dumarba guditaanka iyo gudniinku inuu mashruuc u yahay mashruuca waa wixii bannaan oon shareecadu diidin taa iyada ah rag iyo dumarba inuu mashruuc u yahay khilaaf kama jiro saas daraaddeed baa alimaam ibnu xasmi caleyh raxmatullah wuxuu soo guuriyey wuxuu yidhi ittafaquu calaa ibaaxati alkhitaani linnisa xataa dumarka guditaankooda inuu yahay shay mubaax ah bay isku waafaqeen buu leeyahay ibnu qayimna wuxuu leeyahay inuu dumar iyo ragba uu mashruuc u yahay layskuma khilaafsanaa laakiin waxaa laysku khilaafi doonaa ma waajibba mise waajib maaha mashruuciyadiisa iyo inuu bannaan yahay hadal kama joogo laakiin waxaa lagu kala tegi doonaa xukunkiisu ma waajibba mise waa ka sokeeya taasaa aad iyo aad markaa laysugu khilaafiyo waxaa la kala qaadayaa ragga iyo dumarkaa la kala qaadayaa labadabana waa laisku khilaafsan yahay alimaamu shaafici caleyh raxmatullah iyo in badanoo culimmada ka mida waxay leeyihiin wuxuu leeyahay ragga iyo dumarkaba waajib way in la gudo xanafiyada iyo maalikiyadu iyagu waxay leeyihiin ragga waa mustaxab dumarkana waa mustaxab shaaficiyada qaar ka midana doorto rag iyo dumarba in la gudaayo laazim ma ah bay leeyihin waa shay sunna qaarna waa waajib bay cabbireen qaarna way kala qaadeenoo waxay yidhaahdeen dumarka ayuu waajib ku yahay waa shaaficiyada fi lmashhuur iyo xanaabilada amaa waxaan dhihi lahaa raggu waajib ku yahay laakiin dumarka waajibku ma aha adiga araadaa kala gedisan baa la qabaa ragga waxaa loo badan yahay oo jamaahiirtu ay qabaan ragga inuu waajib ku yahay dumarka marka loo yimaado in badanoo ka mida culimmadu waxay qabaan inuusan waajib ahayn qaarna waxay qabaan waa laazim qaar waxay qabaan waa iska bannaan yahay waa yacni mashruuc laakiin cid qabta ma jirto culimmada muslimiinta ka mida xataa dumarka xaaraan buu ka yahay wax qaba ma jiro xaaraan buu dumarka ka yahay oo lama gudi karo oo ciddii gudda waa la ciqaabi wax culimmada islaamka oo qabtay ma jirto bal ijmaac bay ku soo guurinayaan calaa mashruuciyatihi fii xaqi الnisaa wاlrijaal ha ka doodeen markaa kadib ma laazimba ma mustaxabba ma mubaaxba saddexda ra'yi ha u kala tagaan laakiin inuu mashruuc yahay oo uu bannaan yahay hadal kama joogtaa iyada saas way macnaha ayib labadooda marka la fiiriyana dumarka marka la yimaado fii xaqihim ayaa waxoogaa khilaafku sii xoog badan yahay oo in badani qabaan inuusan laazim ahayn adilada soo aroortay ragga ku soo aroortayna iyo yacni cumuuman la deliishanayo guditaanka mashruuciyadiisa loo deliishanayo rag iyo dumar mayna kala qaadin ha ahaatee haddana maca daalika masaladu waa masale khilaafiya masaa'isha noocaas oo kale oo culimmadii salafku ku kala tageenna ra'yiga adiga aad qabto aduu ku khuseeyaa laakiin haddii lagugu khilaafo daliil lagugu khilaafo ama dhinac kale dadka la raajix noqoto inay qaataan bay xaq u leeyihin saas way macnaha haddii la gudo khayr wa baraka haddii la gudi waayo sidaa laysaga daayo in badanoo culimmadii sunnada ka mid ah qabto bal bilaad badanoo hadda muslimiinta ka mida maba la gudaba bal muxuu ahaayey sheekh ibnu cuthaymiin caleyh raxmatullah cadad min kutubihi wuxuu leeyahy waa iska yani wax wey waa iska sunno haddii laga tago laa ba'sa buu leeyahy fii xaqi الnisa dumarka marka la fiiriyo macnaha laba qodob marka aan baraarujinno intaynaa qodobkaa ka gudbino qodob waxa weeye waa gudniinka dumarka marka laga hadlayo ee shareecadu qabto waa gudniinkan soo tilmaannay ee xadiidka ummu catiya nebigu sal lla alay wasalam ee culimmadu bimajmuuci turuqi ay ku taxsiiniyeen nebigu yidhi sal lla alay wasalam akhfidii walaa tunhiki ama tanhaki yacni waxa weeyaan gud salkana ha ka jarin
salka ha ka goyn salka ha ka goyn maxaa laga wadaa bimacnaa waxa la jarayo wax laga goynayo waa qaybtan soo tilmaanay oo meeshay kaadidu ka soo baxdo korkeeda cad yar oo ku yaallo jilicsan kaasaa horta laga hadlayaa jaridiisa wax ka jaridiisa iyo jarid la'aantiisa midka nabigu uu ku leeyahay sallallahu alayhi wasallam yaani wax ka go salkana ha ka wada jarina ka isaga cilooyin badan nabigu ku leeyahay sallallahu alayhi wasallam shahiyadeeda iyo dareenkeeda u nafci badan ninkeeda u roon wajigeeda u qurux badan cilal badan nabigu sallallahu alayhi wasallam ku leeyahay gudniinka marka sharcigu uu qabo culimaduna ay ka hadlayaan ee dumarka waa kaas waxay leeyihiin adna shay waxa ugu yar baa laga jaray waxa ugu yar fiida ugu koraysa waxa laga qandhuufanay bas in salka laga wada jaro ama goyntiisa la ziyaadiyo waa khilaafu sunnah in inta laga sii siyaadiyo gabadha operation in qaliil lagu sameeyo oo xataa muxuu ahaa bishimaha la sii xoqoo la sii jaro oo haddana la isku dhajiyo kaas waxa la yiraahdaa al-khitaanu al-fir'auni baa la yiraahdaa diinna ma sheegin salla kuma le kutubta fiqigana laga heli maayo bal waa jariimo iyo dambi aan sahlanayn saas daraadeed gudnoonka fircooniga diini ma qabto dhibaatooyin fara badan waa leeyahay oo caafimaadka u noqonaya gabadha iyo dareenkeeda u noqonaya dhalmada u noqonaya waxyaalo fara badan baa ka imaan mashaakil fara badan baa ka imaanaysa taasi marka diini ma qabto intii samaysayna Allah u dambi dhaaf intii maqashana mas'alada hal iska jiro mas'ala sahlan ma far inaad goyso oo ruuxa farta ka jarto ayaa ka roon in gabadha xubinkeeda lagu ciyaaro laana farta ka fudud xubinka joogitaankiisa shaqada uu qabanayo iyo fartu shaqaday qabanayso xubinka ka muhiimsan saas daraadeed waa khalad aad u weyn waana caada jaahiliya oo aan diinta salku lahayn taa meel iska dhig ama gudniinka sunniga ah waa ka aan ka hadalay oo qiyaasta ugu yar in xubinka fiidiisa kor laga taabta intaas way inta kutubta fiqi culimadu ka hadleen khitaankii nabigu yaqaanay sallallahu alayhi wasallam ee soo aroor waxa dhanka kale ah oo isagana baraarujin mudan xamlo waxa jirta ay wadaan gaalada iyo hay'adaheeda iyo in gaala raacya iyo in badan oo iska niyad fiican oo mukhlisiinaho laakiin muqaffaliin ah la iska isticmaalo maxay leedahay waxay leedahay dumarka in la gudaayay waaba jariimo waana xaraam ruuxii gudana ha la soo xidho alla ciqaabo maxkamada la saaro waa nidaamka reer galbeedka waa taa iyada ah waa mas'alo ujeedda leh aslan bana waatan soo tilmaanay gudniinka in la yidhaahdo shareecada ka mid ma aha waa qowl aan hadda ka hor soo marin ummadda islaamka axad culimmada ka mid oo yidhina ma jiro waxaan soo tilmaanay culimmada qaar waxay leeyihiin waa mashruuc oo waa bannaaya qaar waxay leeyihiin waa mustaxab oo waa sunno qaar waxay leeyihiin meehe waa waajib laakiin cid tidhi waa xaaraam culimmada islaamka ma soo marin waa xaaraama marka waa laysu ciqaabayaa waa war gaalo waay waana war reer galbeed waay waana war hay-aduhu iyo waxan kadaata ay wataan waay ujeeddadiisuna waxa waaye sida ibnu qayyim calayhi raxmatullah uu tilmaamay goynta xubinka qadarka laga goynayahay wuxuu leeyahay ibnu qayyim calayhi raxmatullah kitaabkiisa tuhfatul mawduudka tuhfatu al-mawlud tuhfatul mawdud fi ahkam al-mawlud wuxuu leeyahay xubinka jaridiisu xikmadda ku jirta waxa weeyaan buu leeyahay wuxuu dheelitirayaa oo miisaamaya shahwada haddaan la jarin oo aan la dhaawicin shahwadu ziyaaday noqonaysa wabitaali waxay keeni kartaa in la xakamayn waayo oo hadhow zino iyo faaxisho iyo laga adkaysan waayo haddii la tirtirana oo dhaawaca weyn loo geystana shahwadii oo dhan baa baaba'aysa goyntan yartaa marka waxay miisaamaysaa oo isdheelitir ku samaynaysaa shahwadii in ku filanna gabadha waa u soo reebaysaa intii siyaadada xumaanta ku ridi lahaydna waa la tegaysaa waa la jaraya gaalo oo marka gaaladu ujeeddaday leeyihiin iyo kuwan gaala raacayda hay-adahoodu ujeeddaday leeyihiin waxa weeyaan gabdhaha muslimaadka inay fasaadaan ujeeddo kaloo ka dambaysa ma jirto
guryaha laga soo baxo la fasaado zinadu faafto dhalinyaradu isku dhex qubato ayagu halkaasay ka duulayaan wadaad marka mas'alada un meel darafa ka soo qabsaday ama war aan haynin ama waxoogaa lacaga la siiyo la yidhi gabdhaha guditaankooda la dagaalan oo siminaarro qabanahay baa masaladii ku kadsoomay markaasaa waxaad arkaysaa magaalka siminaar baa ka soo war muxuu siminaarkani wadaaddaa dhigahayo waxaa laga hadlayaa gudniinkii gaala gudniinkan ay u socoto ujeedday ka leedahay adigii inaad u sahashood la shaqaysana masale sahlan maaha masalada marka in loo kala qaado xuduudda ah ma bannaan tahay mise ma bannaana ciddii iska daysa oo ku qanacda ay dhib ma leh ciddii gudda oo gudniinkii sharcigaa gudda oo ku qanacdana dhib ma leh laakiin in jariimo laga dhigo waa masale shareecada totally khilaafsan markay gaalo wadatana waa mukhatad gaalo wadato waaba ka sii khatarsan yahay markaa macna sidaa in masalada loo fahmay marka u baahanta baabu akhdi shaaribi shaarubta qaadid qabashadeeda iyo baab u yahay iyo wa icfaa'i lixyati iyo garhka sii dayntiisa faraha laga qaado shaarubta qabashadeedu bimacnaa wax weeye in la gaabiyo ama la xiiro sidaan u tegi doono wa icfaa'i lixyati iyo garhka oo la sii daayo faraha laga qaado oo la taabanin can zayd ibni arqamin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi waaalihi wasalam rasuulku wuxuu yidhi man lam ya'khud ciddii aan qabanin min shaaribihi shaarubtiisa xaggeeda aan wax ka qabanin oon wax ka jarin falaysa minnaa naga mid maaha yacni dariiqannagii iyo jidkannagii ma hayo waana khilaaf rawa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey wاnnasaa'iyu wاtirmidiyu waqaala wuxuu yidhi xadiiثun waya صaxiixun xadiid صaxiixa oo muxuu ahaayey sixadiisa uu shak ku jiran man lam ya'khud min shaaribihi falaysa mina xadiidkaasi wuxuu ka mid yahay axaadiista ay deliishadeen culimmada qaar ka mida oo ku tegey shaarubta in la gaabiyo inay waajib tahay waana sida daahirka axaadiista laga faa'iidaysanayo badankoodse culimmadu waxay ku tageen waajibmee waa sunno daahirka axaadiistana waxay xoojinaysaa inuu waajib yahay gaabintu in la sii daayo faraha laga qaadana ay xaaraamta xaggeen ka qaadanaynaa laysa minnaa naga mid maaha baa le ma shay sunno ah baan laga mid maaha ruuxa la dhihi oo bannaanka loo saari oo lagaga beri noqon maya ruuxaasi khalad iyo dembi buu galay way macnaha aan yarayn ayb وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك وحوري جزوا قابية الشوارب شاربيالك وارخوا سيداية كتغا فراغ قال اللحى قررك وجمع اللحية قرركنا داية وفراغ قال وهوبا بحنا خالفوا خلافة المجوس مجوس خلاف قرم مرق مجوس روى حوري أحمد باوري ومسلم يا مسلم باوري حديث كاسي لبدي مسألة وكاه الله يشارب تنقابية قر كانت سي دايو أو دايو فرحة كقاضي علادنا وو شيغيو مجوس تكو خلاف عليه وحين كفها أن ماشاسي مجوس أيا شارب تسي دايسن جرتي قر كان حيري جرتي خلاف على المرك أصل كنا وحوي قاعدة من قواعد الشريعة مقاصد دواوين بكمت مخالفة قال هذا الخلاف وعادات كودية لقن كودا لغو خلاف وحي نسكسو أروري إستقوى بقونيديس وأنا مسألة وكالي في الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كتاب كيسا اقتضاء الصراط في مخالفة أصحاب الجحيم صماهم يعني وحويان مسألة سكو سابسين إن لخلافنا أسل كيد وواجب حديث كان وحو حوجينا يا حديث كورا معنوه كتصيو شاربت إن لقابيو إني واجب تهي إن لسيدايو فراها لقا قادون لطابنين إني حارانتا لأن وحو كعليي سيدين تيدا وحا كجرتا موافقة المجوس gaabinteeda iyo jarideedana waxa ku jirta mukhaalafatul majuus baa ku jirta saas macna in majuusta la khilaaf طيب waxa kale xadiidku ku daray garka sii daaya oo faraha ka qaada shaarubta
in la gaabiyo ama la xiiraayay culimada badankood waxay qabaan iyo jumhuurtoodu inuu sunnay qaarna waxay qabaan inuu farad waajibaya sidaasaana daahirka axaadiistu ay xoojinaysaa waxaana rajaxay alimaam ibnu carabi ibnu xasmi iyo shawkani iyo qayrkood baa rajaxay shaarubta in la sii daayo inay xaaraam tahay oo faraha laga qaado waa xaaraam sidaasaana hadda daahirka axaadiista inooga muuqata xadiidka labadan xadiideen hadda tilmaanay waxaa kaleeto muxuu ahaayey khaasatan markii ay noqoto inaad gaala kaga dayanayso iyaduna waaba ka sii xag jirtaaba waxaa kaloo xadiidku tilmaamay waa xadiidkan labaade garhka in la sii daynayo isaga la cafinayo oo faraha laga qaadayo وعن ابن عمر وحا لغا ورين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبيغا وحو كورين قال نبيغا إنو يري خالفوا خلاف المشركين مشركين خلاف وفروا معانكو خلافنا وفروا دميسترا اللحى غرريالك أما غررك دميسترا أو دميسترنان تودا أدايا وحفوا سلك كغوية الشواربا شاربيالكنا سلك كچرا متفق عليه waxaa ku soo aroortay shaarubta al-ihfaana way ku soo aroortay waxaa kaloo ku soo aroortay al-jazzuna waa ku soo aroortay juzzu shawaarib soo marnay xadiiska hore jazzigu waa gaabinta waay qasiga waa kan iyadana soo marnay soo qassu shaarib waa gaabinta baynamaa ihfaagu uhfu shawaariba bimacna al-isti'saal waay salka in laga jaro culimada salafku labada mas'alay qaarba mid rajaxeen oo qaar waxay yiraahdeen shaarubta in la xiiro waay in la gaabiyo ma qaarna waxay war xiirida musla ku jirtay oo ninkii haweenayba uu ekaane hal la gaabiyo wuxuuna hala soo reebo qaarna halkaas ay mareen al-imam ahmed alayhi rahmatullah huwa sahih wuxuu leeyahay maadaama labadaba xadiidku ku soo arooray inaad gaabisana waad heli kartaa inaad xiirtana waad heli kartaa labaduba waa jaa'iz buu leeyahay sidaasaana sawaaba macna طيب ama masalada garhka ku saabsan iyo siideyntiisa iyadana waa mas'ala khilaafiya waxay culimadu isla ogol yihiin xiiridiisu inaysan banaanayn saas daraadeed ibn xasmi alayhi rahmatullah wuxuu soo guriyay ijmaac in la isla ogol yahay oo la isku khilaafsanayn ala anna i'faa al-lihyati fardun garka in la sii daayo inay waajib tahay la iskuma khilaafsano ibn abidin wuxuu leeyahay isaguna imaamkii xanafiga ahaa al-akhdhu min al-lihya دون القبضة كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يبيحه أحد garka in laga jaro wixii ka hooseeya qabashada qabdada waxa weey garka markaad saa u qabato wixii ka siyaadsan muran baa gali doona laakiin wixii aan qabdada iyo gacantu markay qabato aan dhaafsiisnayn in la jaro buu leeyahay oo la gooyay sida ay maqaaribada qaar kood sameeyaan ragga dumar iska yeelyeelkuna ay sameeyaan ee dumarka isku shabahaya arrinta noocaas wuxuu yiri ahad culimada kamid oo baneeyay ma jiro buuri waxa laga hadlay ogow waa wixii qabashada yaani ka hooseeya qabashada wixii ka siyaadsan waa mas'alad doodeed ku jirto ama wixii qabashada gacantu markay qabato aan gacanta ka baxsanayn taas laga hadlay xiiridiyada warkeeda iska bada kadib waxay ka doodayaan gaabintu ma xaraam ba mise xaraam ma xiiridu inay xaraam tahay warkeeda meel waay waxana ku tusaya ahadiista qaar way reebto nabigu nahyi buu ku soo arooray sallallahu alayhi wasallam ha xiirina ha gaabinina ahadiista qaarna amar bay bixisay wal asl fil amri al wujub waxa kale lagu culeynaya waxa ku jira at-tashabbuh bin nisa dumarka oo la isku shabaho waana xaraan laana wax weeyaan ilaahay tabaaraka wa taala ragga wuxuu garka u siiyay dumarkana uusan u siin xikmad baa ku jirta shahama ku jirta shahama raganimo ilaahay tabaaraka wa taala wuxuu ragga u siiyay waa nooc miizaa waa markaad isagii oo dhan salka ka marto soo wajigaagi waji dumar ma noqon ya tashabbuh baa marka ku jirta
culimada qaarkood waxay leeyihiin waxa ku jira taqyiiru khalqillah abuurkii ilaahay oo badashay baa ku jira ilaahay mas'ala la yaqaanay marka ma ficil ahaanna nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi garhkiisu siduu u weynaan jiray saxaabadu markay gadaashiisa ku tukanayaan waxay ku garan jireen inuu wax akhrinayo garhka dhaqdhaqaaqiisa ay arki jireen waxay ku tusi marka garhka gadaal laga arkayo soo garh weyn maahayn marka isagana waa sii daayey saxaabadiisuna waa sii daayeen amarna waa ku bixiyey xiiriddana waa reebay iyo muxuu ahaayey gaabinta kullu daalika axaadiistaasoo dhan ayaa nebiga ka sugan salawatu rabbi wasalamu calayh marka xiiriddu iyadu ma la ogola amaa gaabinta wixii markii gacanta lagu qabto la cantoobiyo wixii ka siyaasan gaabinteeda iyo goynteeda waa mas'ale khilaafiya cinda muxuu ahaayey salaf oo qaar waxay leeyihiin waa la gaabin karaa in badan oo culimmadii salafka ka mid ahna qabta gacanta markii lagu qabto wixii ka siyaasan waa la jari karaa qaar waxay ku khaas yeelayaan marka aad xaj aado ama cumro aado sidaad timaha madaxa u gaabinayso ayaad gaabin kartaa aarkan cabdullahi bni cumar baana kutusaya soo socda qaarna waxay leeyihin xilli walba waad gaabin kartaa wixii ka siyaasan qabashada gacanta wixii ka siyaasan masaladaasi marka waa masale khilaafiya qadarkaasi waa khilaafiya amaa xiiridda ayadu waxa weeyaan masale sahlan maaha khaasatan haddana gaar ahaan markay noqoto in gaalo lagu raacayo gaalo lagaga daynayo leanna waa sunno ay gaaladu leedahay ayagaa waxay u muujiyeen oo dadka fahansiiyeen timaha garhka in la xihaayo inay qurux tahay marka saa walilasaf in badanoo muslimiinta ka mida yacni waxa weeyaan muxuu ahaayey dagaal waxay kula jiraan garhka aan sahlanaynba dagaal hadday gaalada la geli lahaayeen laga yaabo inay kaga rayn lahaayeen bay garhka kula jiraan war garhkan maxaad ka rabtaa yaa ku diray garhka in la sii daayaa qurax in la xiiraayo waa foolxumo waa quruxna gaala inugu tidhi nebi maxamedna muxuu yidhi daaya waa qurux gaalana maxay tidhi xiira waa foolxume adiga labadaa mid dooro marka ya ama nebi maxamed baa qurux ku sheegay dooro ama gaalaa foolxumo ku sheegtay xiir labadaa khiyaar baa yaalla marka in garhka la daayo ayaa hadyigii nebiga ahaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu yidhi imaamku sheekhu wuxuu yidhi zaada albukhaariyu bukhaari wuxuu ziyaadiyey fa kaana wuxuu ahaa ibnu cumar wuxuu ahaa idaa goortii xaja uu xajiyo aw ictamara ama uu cumraysto qabada mid qabta ayuu ahaa oo cantoobiya calaa lixyatihi garhkiisa ayuu qaban jiray saasuu gacanta ugu cantoobin jiray famaa fadala wixii siyaada oo gacanta qabashadeeda ka siyaada akhadahu waa qaban jiray marka waa jari jiray macnaha waa xiiri jiray oo goyn jiray macnaha aarka cabdullahi bni cumar waa aar saxiixa aarkaas waa aar saxiixa oo muxuu ahaayey xajka iyo cumradiiyo markuu aado wixii qabashada gacanta ka siyaadsan inuu jari jiray isla aarkaasoo kaleoo mawquufa wuxuu isaguna ka sugan yahay abu hurayra isagana waa ka sugan yahay labadaa aar ayuu sheekh albaani caleyh raxmatullahi u cuskaday mas'alada markuu yidhi garhka wixii ka siyaadsan qabashada gacanta waa la jari labada aar baa wuxuu siiyey xukmu rafci oo wuxuu yidhi aar ibnu cumar maadaama uu nebiga aad ugu dayan jiray inuu khilaafana ay yaraan jirtay waxay ku tusi inuu arrinka nebiga uu ka hayo macnaha abu hurayrana sidoo kale labadan aar buu marka xukmu rafci siiyey akhiiranna waa ka fatwooday in garhka la gaabin karo wixii ka siyaadsan qabashada mas'aladana kutub badan baa laga qoro aad loogu radiyey oo niqaashkeediiyo ruduuddeedu waa iska fara badan yahay ragga aad yani masaladaa u diiday waxaa ka mida muxuu ahaay sheekh ibnu cuthaymiin iyo sheekh ibnu baaz iyo culimmada sunnada laakiin waa masale khilaafiya adiga warka qabso wixii qabashada gacanta ka siyaadsan waa masale khilaafiya maxaa xoog badan maxaa daciifsan in la daayaa xoog badan alimaamu maalik caleyh raxmatullah isagu wuxuu dhihi jiray garhka oo faraha laga qaado ilaa uu iska dheeraado wuxuu dhihi jiray waa mamnuuc leanna nooc shuhura'a baa ku jira shuhura waxaan arki jiray markaan jaamacadda dhiganayna magaalada madiina masaajidka waxaa joogi jiray nin garhkiisu uu gaadhayo jilbaha ayaa joogi jiray markuu masaajidka soo maro dadka soo dhex marayo dadka oo dhan baa wada fiirsanaya marka sheekh albaani laftiisa masaladaa wuu tilmaamaya marka heer ay noqoto shuhro dadkii o dhan aad ka dhex baxdoo lagu soo fiiriyo oo lagu soo daawado taa iyada imaam maalik waa diidi jiray oo wuxuu dhihi jiray waxoogaa muxuu ahay sida ha loo dhaamo adiga masaladu waa masale khilaafiya xiiridda khilaaf kuma jiro cala araajix laakiin wixii kaleeto oo qabdada ka siyaasan oo muxuu ahay ka kororsan ama ka baxsan khilaafkaasaa ku jira masaladu mar hadday khilaaf noqotona waxay ku xidhan tahay maxaa kula xoog badan
ama maxaad ku qanacday markaad weydiisay dadka aqoonta leh saasay ku xidhantay macna baabu karaahiyati natfi shaybi wuxuu baab u yahay cirrada oo la tifo karaahiyadeeda markaad cirrowdo timahaagu caddaadaan inaadan cirrada maagin oo cirrada uun intaad timaha ka raadsato uun aadan tifin dabcan marka la tifi karo waa markay cusub tahay soo ma oy timahaaga ku cusub tahay laakiin haddayba kulli iswada beddelaan ma tifid baa markaa taal waad isdhiibi markaa aad wadale markaa war male marka in cirrada lala dagaalamo guud ahaan ama ha badato ama ha yaraatee taa karaahiyanimadeedu baabu yahay عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحوري لا تنتفوا هتفينوا هقويننا هالشيب عرضة هقويننا محايلة فإنه إساقو نور المسلم مسلم كالنور كيسيوه روح مسلم كمؤمن افتين كيسي النور كيسيوه عرضه ما من مسلم مجره أو يشيب عروبة يشيبة عروبة في الإسلام إسلام كالحديث diinta islaamka iyo iimaanka dhexdiisa ku ciroobaya ma jiro ilaa haduu jiro kataba Allahu wuxuu u qoraa lahu isaga biha cirada daraadeed ciroobida uu islaamka dhexdiisa ku ciroobay darteed wuxuu ugu qoraa xasanatan xasanu ugu qoraa warafacahu wuxuu u koryeelaa biha iyada sababteeda darajatan darajana waa u koryeelaa wa hatta wuxuu ka ridaa anhu xaqiisa biha iyada sababteed khati'atan dambina waa ugu dhaafaa marka waxa soo khayra ku jira روى حوري حديث أحمد بن وأبو داود كذلك وحصو صار النسائي بن ماجه وانا حديث صحيح هو شيخ الباني وحلي هي وحسن صحيح طيب وحنا فايدين يا إن عرضة لحيري كرين لنا جوين كرين وانا عليه والروح مؤمن كنور كي سوا وانا مد النبي صلى الله عليه وسلم حديث كي كلا كتل مامي إن من إكرام الله إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم إلهي وينينتي سكمتهاي مسلم كعروبي الدين كدحديس كعروبي كرامينتي سي شرفديس ووينين إله marka ciradu annaga waa dhibsanayna oo xogaa odaynimo ku tusoma khaasatan rag gurdoonka ayaga dhibay ku haysa ayna dadka kale ku hay xogaa marka culayskaas iyo dhanka iyo adduunyo adiga ha ka fiirinina baashan ajirna waa ku socda dambina waa la isugu dhaafaya darajana way leedahay ha iska jarin dayso saasi macna inay xaraan tahay in la gooyo ayaa waxa ku tagay bacdu ahli ilmi imaam an-Nawawi waa soo dhaweeyay ibn Rif'ana wuxuu ka soo guuriyay al-Imam Shafi'i fi nass al-Umm kitabkiisa buu ku cadeeyay buu timaha cirrada in la jaro inay xaraamto laakiin iyo geedka ka tamkale nabaadka ka tamkale ونحوهما إلى لبدا وحي لمده وكراهية السواد إلى مذهب كمدو كراهية نمديس انتماها مذهب مدو له بدل وعبابي هاي عرضي وحان لهلا دايو يعني لطيفين ولا تشرين وحان سن ممنوع هاي وباب كان كهليا إن هذا مذهب كذا عرض عطان كبدلي كرتو وتكون بدلي كرتو حنها ومذهب كيسو هاي شالله katam inaad ku dari karto kadamku isaguna waa nabaad sida xinaha oo kale buuruhu ka baxaa inta badan midabkiisuna yara madow xigeen waay madow iyo casuus isku xig jira waay marka xinaha lagu daro wuxuu u yara ekaanayaa madow xigeen buu noqonaa madow diqa maaha laakiin wuxuu midabkii yaani ahaa casuuskii buu bedelayaa markaasuu madow xijinay saasa la yiraahdo katamka waa geed noocaas ونحوهما أي وحي لمد وكراهية السواد يمذب كمدو كراهية نمتكيسا مدوغا انتماها لغو بدلو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال وحور جيء والا كيني بأبي قحافة أيال ليمد جيء والا ليمد والا كيني بأبي قحافة أيال ليمد وأبيه وي يعني وحويان يوم الفتح ما ننتي مكلا فرتيبا لليمد إلى رسول الله بالوليمد صلى الله عليه وآله وسلم وكأن وابا أسقو رأسه مدحيس ثقامة ويه ثقامة وجد نجار أو يعني محوها هاي أبحيسة إيوه مليه سبع عديهن
geedaha buxuu ka mid yahay marka ubixiisuna aad buu cadiya midhaha uu bixiyana way cadiya timaha ibni aadamku markay ciroobaan buu ogyahay lagu shabahaa wadadeedenu geedaha naqaano bay qaar ku sheegi jireen laakiin muxuu ahaay wax nas ma leh yani wax cad ma kolba geedun bay u soo dhaweeyaan oo mar geedii ay yaqaaneen uu mid muxuu ahaay ay ku magacaabaan wakaanna waba isagoo ra'sahu madaxiisu thuqaamatun uu yahay geedkaasi madaxa cad ee midhihiisa iyo ubixiisuba cad yahay sidaasoo kale isagoo muddo ayaa la keenay faqaala markaas wuxuu yidhi rasuulullaahi sala allahu calayhi waali wasallam wuxuu yidhi idhabuu la taga bihi isaga ilaa bacdi nisaa'ihi dumarkiisa qaar ka mida xaggooda ula tagoo u geeya faltuqayirhu ha badasho bishayin wuxuun ha ku badasho ciradan wuxuun ha ku badasho wajannibuuhu kana fogeeya assawaada madowgana ka fogeeya wixii kale ku bedelaysa ha ku badasho laakiin madowga ka fogeeya faltuqayirhu bishay روح وري الجماعة جماعة دي باوريه إلا البخاري بخاري والترمذي مويه حديث كاس وحو إنه فائده انت ما عرضها مذهب كودا لبدلي لكن أن مذو لقو بدلين طيب لفظة وجنبوه السواد لفظ والله هيستا ووحل لقو دقينها وحل ليها واللفظ الشاذة رواد بدن كود مين الشيقين بالليه waa la daciifinaya meeshaasayna ka imaan doontaa culimada dooda ka qabta madowgu ma xaraam ma bis xaraam ma lafdadaas ayay sugnaanteeda dood ka qabaan طيب وعن محمد بن سيرين قال وحول سئل وحل ويدي أنس بن مالك وحل ويدي عن خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيغا علاميسيس اما تيما بدليدي وتيما بدلي جري ايا لا ويديي فقال مركز وحول إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله لم يكن موسى نهين شابا مدعي روبي موسى نهين إلا يسيرا وحير موي يعني نبيغا وحل ويديي مع علامن جري اما تيمي اسمه بدل جري مركز يقولي ما بعي روبين بوحير موي ولكن أبو بكر وعمر أيا بعده قداشي سخضبا علانتي بالحناء بكو علانتين والكتم جيتك كتم كليلا وكان هذا كسؤال لأنه مدوح يجين كوا متفق عليه وزاد وحو زيادة أحمد وحو قدر حديث كاس قال وحو نكل إلى أنس وجاء وحي من أبو بكر بأبي قحافة أي ليمد إلى رسول الله بأوليم صلى الله عليه وسلم وآبه يوم فتح مكة تمالنتي مكة فرتي يحمله حال آبه حنبارسين سقى وضوء آبه كان حتى وضعه إلى أودقي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبي هرتيس إلى أصدق فقال وحول رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله وحول لأبي بكر كيري لو أقررت هداد سوقي لهيد ودود دين لهيد الشيخ أضيق في بيتي قرقي سهداد ودين لهيد لأتيناه وأنو إيمان لهيد أنا أتي لهيد لأتيناه وأتي لهيد بمعنى أضيق دأدنا محاد قرقي سوقا سوقا عيس hadduu noo baahan yahay annaga meeshiisa ugu tagi lahayn buu nabigu ku sallallahu alayhi wasallam muxuu leeyahay takrimatan karaamayn darteed li abi bakr uu nabigu karaamaynayo sallallahu rabbi wasallam alayhi yani qadarin iyo ikram abu bakr uu sameeyay fa aslama markaasuu islaamay abu quhafa walihiyatuhu walhal lihiyatuhu garkiisa iyo wara'su madaxiisu kathuqamati uu yahay geedka midhaha cad ee ubaxa cad oo kale uu la mid yahay bayaadan xagga cadaanta asagoo madaxii kulli wada cadaaday iyo garkiiba faqala rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam rasuulku markaas wuxuu yiri ghayruhuma madaxa iyo garka timahooda badala wajannibuuhu ka fogeeya as-sawada madowgana ka fogeeya saasi macna طيب xadiidkii hore faahfaahsan Anas ibn Malik markuu leeyahay nabigu sidii saba in yar buu ciroobay runtiiba oo nabigu markuu geeriyoonayo waa runtiyo nabigu markuu geeriyoonayo salawaatu rabbi wa salaamu alayhi 63 sano jir timihiisa inta cadna waa la tirin karay laakiin macnaheedu ma aha xinna muusan marinin oo Anas haduusan arkin waxa inoo soo socda xadiid kale oo tilmaamaya Muslim xadiidkeeda inuu nabigu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi timihiisa mariyay marka Anas intuu ogaan buu sheegay xadiidkan waa xadiidka loo dalishanayo in aynan banaanayn timaha in la madoobeeyo markay ciroobaan inay xaraan tahay حديث لو دليشدوا عقلوا لو دليشدا حديث عبد الله بن عباس أبو داود وصوصاري غير كي شغل باننا صحيح والنبي صلى الله عليه وسلم يكون قوم
يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة waxaa ahaan doona dad aakhiru zamaanka ku cilaaman doona madowga sida shimbirta qooleyda gulgulaheeda oo kale cunaheeda madowga marsan oo kale dadkaasi ma urin doonaan udgoonka jannada xadiidkaasi waa xadiid ay culimo badan saxiixinayaan waana xadiista loo daliishado inaysan bannaanayn madowga marsigiisa kan iyo kaasaa ugu muhiimsan axaadiista loo daliishado labada xadiidbana culimada qabta inuu xaaraan yahay ayaa daliishanaysa ayib ibnu xajar calayh raxmatullahi wuxuu soo guuriyey hal mar waa la ogol yahay buu yidhi in madowga la marsado waa marka dagaal lagu jiro mujaahidka waa loo ogol yahay ittifaaq buu ku soo guuriyey wuu u baahan yahay oo maxaa tima madow iyo tima cad jihaadka maxay u kala tari maxaa faa'iido ku jirta ya ninku markuu tima madow yahay waa laga baqi soo saas ma cadowgu laakiin in odayoo gadh cadaaday waa la daandaansan soo ma xoogaa marka waxaa ku jirta noocoo muxuu ahaayey jimatuurad iyo xoog baa ku jira ittifaaqan marka wuxuu leeyahay mujaahidka timihiisu cadaadeen way u bannaan tahay markuu dagaalamayo inuu timihiisa madoobeeyo waxaan mujaahidka ahayn baa laga doodsan yahay marka saasuu u dhigaya masalada culimada qaarkood waxay qabaan waa madhabka shaaficiyada imaamu nawwina uu doortay iyo qayrkoodba waxay leeyihiin waa xaraam in timaha la madoobeeyo axaadiista aan sheegnay bayna daliishanayaan qaar culimada ka mida waxay leeyihin waa makruuh ee xaraam ma xanafiyada maalikiyada shaaficiyada xanaabilada waa jumhuurta waay say culimmadu u badan yihiin waxay leeyihin xaraam ma ahee waa makruuh yacni dembi kaa soo gaadhmaya lakiin inaad iska daysaa fiican qaarna waaba ka sii dareenoo waxay yidhahdeen jaa'izun bilaa karaaha waa iska bannaan tahay bay dhan wax karaahana kuma jirto ka bax bay dhan warkaas waana madhabka xanafiyada waxaa doortay abu yuusuf iyo moxamed ibnu xasan jamaaca saxaabada iyo taabiciinta ka midaa ku tegey oo fuqahadii saxaabada iyo taabiciinta qaar ka mida waxay dhihi jireen wax dhiba kuma jiro ayib qolo kale waxay leeyihiin ragga iyo dumarka ha la kala qaado oo dumarka ha loo ogolaado iyaga asal waxaa u ah ziinada wax badan in loo fasaxee raggana waa uga baahi badan yihiinoo dumarka ha loo ogolaado laakiin ragga ha loo diido waana ra'yiga isxaaq ibnu rahwiye mas'alada marka khilaafkaas ballaadhan baa ku jira xaggee buu ka yimid labada xadiid iyo xadiista ku soo aroortay mas'alada waa laysku haystaa saafaan adiga xadiidkaa horena dood baa ka taagan oo lafdiga wajannibuuhu sawaada ah ma sugan yahay mise ma sugnaa laga muransan yahay xadiidka kale ayaan hadda tilmaamaynay ee yakuunu qawmun yakhdibuuna fii aakhiri zamaanna asagana sugnaantiisaa laga doodsan yahay salafkiina waa isku khilaafeen warka soo ururiyo mas'aladu waa masale khilaafiya in badan hadda waxaad arkaysaa culimmada sunnada rag ka mid oo mucaasiriinta oo garhka madoobaystay waxay ku qanceen madhabka dhahaya inay iskaba bannaantay kaasay ku qanceen masaladu marka waa masale noocaasa labadan xadiid marka la fiiriyo masaladu inay xaaraan tahay bay u xoog badan tahay sidaasi laakiin ninka qabaayey isagaa qaba ninkay la xoog badnaatana isagay la xoog badnaatay ninkii ku khilaafoo dhanka kale ay la xoog badnaatana hadda wax way war ma leh adiga dadka ma fikirkaagaad ku qasba sidanaa kula xoog badnaatay dadka kalena sida kale la xoog badnaatay waxayna masaladu salka ku haysaa axaadiistaasi inay sugnaato dood baana ka jirta ayib wallahu aclam sida ila xoog badani waxa weeyaan in ay xaaraan tahay madoobaysiga in madoobaysada in la marsado ra'yigaasaa ila xoog badan wallahu aclam laakiin masaladu waa masale khilaafiya weeye sidaa marka xuduuddaas in loo fahmay ku baahan وعن عثمان بن عبد الله بن موهب intaa markii laga baxo waxa ayadu aan muxuu ahaayay aan horay looga hadlay timaha madow oo hadana la sii madoobaynayo ama timaha madow oo kalarada kale loo sameeyay taayada bacdu cilmi waxay leeyihiin la baas dhib ma leh qaarna waxay leeyihiin warmeehe ziinada asalka madowgay ahayd kalaradan gala gaala lagaga dayanaya at-tashabbuh bil kufar ba ku jirtay hal la diido mucaasiriinta taana isku diidan وعن عثمان بن عبد الله بن موهب قال وحور دخلنا وان قلنا على أم سلمة أسو قلي فأخرجت ويسو صارتي إلينا أنك وحي نوصو صارتي من شعر النبي نبي تنتي صلى الله عليه وسلم قال كمده فإذا مركبا هو شعر كي تنتي
makhduubun mid la cilaamay way bil xinaa'i xinna lagu cilaamay wal katami iyo katam lagu cilaamay timihii ay noo soo saartay katam iyo cilaam baa ka muuqday buu iyo xinne رواه حوري أحمد باوري وابن ماجه والبخاري ولم يذكر موسى شيخ بخاري بالحناء والكتم موسى شيخ بخاري الوايد سمعي كو اكتاي إن لي يراهدو فإذا هو مخضوب أما بالكتم والحناء إن لو قدروا بخاري الوايد سكو جرت ساسو كودا واسوغنتاي معنا حديث كان أم سلمة أو تنتي النبي أو علاما أي كنتي هي حديث كي هوري أنس أو يري نبي تنتي سبا إن بدن ما عروبين سألو جمعينه waxaa lagu jamcinayaa Anasna intuu arkay buu ka warramay Salamana timihii nabiga sallallahu alayhi wasallam oo cilaamo bay heshay saas daraadeed man alima hujjatun ala man lam ya'lam saas macna isma diidayso isaguna intuu ogaa buu sheegay iyaduna inay ogeyd bay keentay macna wa an nafi' an ibn umar anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam nabigu kaana wuxuu ahaa yalbasu mid xidha ayuu ahaa an-ni'ala kabaha as-sabtiyata tibaha kabaha as-sabtiga loo iinaanay السبتية اي هرقع السبتية ونسبة إلى السبت واحد لقوة وهرقع لؤضة اي هرق كستول لما قديي تما يعني وحنوش إذا كباها اللي قسمي اي السبتية اللي هذا صاصي معنا السبتية وهرقع لما قديي كباها قسمي كان وحو أي يلبس مدحدا النعالة السبتية اي هرقع لما قديي كسمي ويصفر وعسين جري النبي صلى الله عليه وسلم لحيته وقركيسه بالورس نباتك ورسق ليلاد والزعفران يا زعفران كايو كو عسين جري وكان وحوها ابن عمر نوحوها يفعل مثل ذلك ارنك رواه وري ابو داود والنسائي وحديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم تيمها قركيسه وعسين جري ورسق يا زعفرانكو ونباتاتك دولك كبخو ميدبك لوو بدلوها طيب ابن عمرنا اسقو نبي كغدا انو سمين جري طيب حديثك وحو خوجين انه النبي صلى الله عليه وسلم قركيسا انت عرودي انه بدلي صاصي معنا وعن ابي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحو ان احسن ما غيرتم وحد كبدشان كugu wanaagsan bihi isaga hada shay ciradan aad ku badashani alhinna hinnaha way wal katamu iyo katam in ahsana ma shayka ugu wanaagsan oo غيرتم aad ku badashaan ood ku doorisaan bihi isaga hada shayba ciradan aad ku badashaan waxa ugu fiican waxa way alhinaa iyo wal katamu iyo katamka waa kan soo sheegnay xinnaha iyo katamku waxay kala yihiin xinnahana waa kan aynu naqaano ee cas ama muxuu ahay jaalaha katamkana waa geedka aan sheegno waa nabaad madow xigeen ah isaga iyo xinnaha marka la isku darana waxay noqonayaan عصوص iyo madow isku jira ruux markuu ka yara fogay waxaad isleedahay uu gadh madow yahay laakiin markuu kugu soo dhawaado gadhkiisa casuus baa ka muuqda saas macna marka katamka waa lagu qasaa markaasa wuxuu noqonayaa yara madow xigeen buu noqonayaa aan madoobayn macna رواه حوري الخمسة شنتي با وريسي وصححه وحا صحيح الترمذي وحديث صحيح marka katamka iyo xinnaha iyo adiga fahmo lagama wado geedahani bixaddi daatihima iyaga la fahaantooda wax xukuma ku xidhan ma jiro ee xukumku wuxuu ku xidhan yahay midabka saas macna hadii maadooyin kale la isticmaalo bedelkooda laakiin midabkii oo kale leh xukumkooda ay la mid sidoo kale too macna waana sida hadda jirto Soomaalidu waayahan dambe waxa laga ganacsadaayo la keenay waxay yiraahdaan xinnaha madow sheekh ma la marsan kara xinnaha madow waa sawaadkan hadda ka soo hadalay sawaadkii doodiisii culimadu waxay ka qabaan aan ka soo hadlaynay kaas baa laga wadaaye xinna xukunkiisa ma qaadanayo xinnaha waxa la yiraahdaa midkan muxuu ahaay jaalaha casba la yiraahdaa macna waxaanu jeedaa kan jaalaha ayaa la yiraahdaa maxana xinna midabkaas la yiraahdaa ama geedka ha ka yimaado ama meel kale ha ka yimaado وعن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رسولك وحوري ان اليهود يهود والنصارى النصارى لا يسبقون مبدلان مدبك او مرنجيان تيمها مرنجيان فخالفوهم خلافا رواه حوري الجماعه جماعه بورس وقدسي حديث كاسي تيمها مدبكودا ان لا بدلاي inay ku jirto mukhalafatu al-yahud wan-nasara asmaana in la daayana muwaafaqa ku jirta xadiidkaas ay dilishadeen culimada qaar kood oo qaba taqyiirka in cirada la bedelaayay waa waajib ilaahay
qaarna waxay yidhaahdeen inay waajib tahay waa riwaaya can axmed jumhuurtuse waxay qabaan in la bedelaayey laazim ma ahee waa sunno saas macnaha marka xadiidkani wuxuu xoojinayaa daahirkiisu ra'yiga imaam axmed ee qaba inuu waajib yahay saas macnaha وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال وحوري مرة ومري على النبي مرة وحا صومري على النبي نبي كركي صلى الله عليه وسلم رجل نبا صومري نينكاسو قد خضب حديث كاسو حديث قد خضب نينكاسو علامي بالحناء حنكو علانتي فقال مركز النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن محا وناك بدنيسية والله يا بهذا كان ما أحسن ألا وناك بدنا هذا كان بمعنى يعني وحويا حنا كرك أمرس فمر وحا صومر رجل آخر ننكله وقد خضب علامي بالحناء والكتم كعلام لبدي سوق دري فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان أي أحسنك ونكسن من هذا كان كي هره حنها كليها أنا لها كان دم بعدامه وحوجا حنها يكتم كإسكو دري فمر وحا صومر آخر متصدحات وحال قد خضب علامي بالصفرة شالئ كعلامي marka waa xinii waa ka yara badalay faqala markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam hada kani ahsanu wa ka wanaagsan yahay min hada kan kulli dhamaanti labadii horaba kana ka sifiican طيب روح وري ابو داوود وري وابن ماجه واسي ضعيف ادون نبد قال له ورونا الله لكن حديثه هو ضعيف اساس معنا ما سقنا طيب وعن ابي الرمثه قال وحوري ابو الرمثه التيمي صحابي طيب النبي صلى الله عليه وسلم بو يمد سو ابي لا سعد markaas rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri aabihi buu la hadlay wuxuu ku yiri ma hada minka bu kani xaqaaga muxuu ku yahay buu maxaa suti markaas wuxuu yiri ibni waa wiilkay markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam amma ibnuka la tajni alayhi wala yajni alayka hadiiskaas ninkii ku yimid waa wiilkaaga dambigiisa qaadimaysid asaguna dambigaaga qaadimaayo la taziru waziratun wizra ukhra يعني way isdaleen dambi la isugu ma qabto طيب حديث كاس نينكو كيميد ابي رمثه وحول وعمير عن ابي رمثه قال وحول كان النبي وحو صلى الله عليه وسلم يخضب مد علامه بالحناء حنها اي والكتم ايو كعلامج وكان وحوها شعره تنتيسو يبلغ مد غاده كتفيه لبديس كربود او منكبيه واسكو دوي يعني timaha nabigu sallallahu alayhi wasallam way laalaadeeno ilaa waxay gaadhayeen tunka ama garbahay gaadheen ama tunka hoos bay u dhacayeen macna rawaha wariya ahmad baa wariyay sanadkiisu waa dhaif nin la yiraahdo dhahaak ibn hamza ku jira oo dhaif wa fi lafdhi kala waxa ku sugan oo li ahmad u sugnaaday iyo wan nasaa'i iyo abi daawud wuxuu yiri ataytu nabiyya wa isla hadithkii hore laakiin kan dambe sanadka dambe waa xoog badan doona كافر ضعيف وفي لفظ كرؤ لي أحمد أسقنادي والنسائي وابي داود لفظك وحا كسو أروري إنو أبي رمثة يري أتيت النبي كانوا يمن صلى الله عليه وآله وسلم مع أبي آباه لتشرنكيس والحال له أسقنادي والحال له لمة آباه أنا الله سعود بها النبي قويم والحال له النبي أسقناتي لمة هلبو بها هلبدانا ay ku sugan tahay radacun daroobid oo min hinna'in hinna'a rada'a wuxuu yiri ar-rada'u bil 'ayn al-muhmala 'ayn aan dhibic lahayn la akhriyo ay latkhun wa daroobid marmarin wa marka limadana waxa la yiraahdaa waanu tagi doonaa timaha way sii dayn jireen naga hadda Soomaaliya hadana dumarka uma timaha sii daysay laakiin nabigu sallallahu alayhi wasallam timaha waa sii deysan jiray saxaabaduna waa sii deysan jireen timaha marka la sii daayo mar waxa la yiraahdaa wafra marna waxa la yiraahdaa limma marna waxay noqotaa jumma saddexduba waa timuhu markay laalaadsamaan oo madax ay ka laalaadsamaan kolba meeshay joogaan bay magac leeyihiin taas weeyaan wafrada waxa la yiraahdaa markay dhagaha gaadhaan markay wax yar dhagaha dhaafaanna waxa la yiraahdaa limma la yiraahdaa markay يعني wax yaray dhagaa hoos u yar dhaafaan markay dhaafaan oo gaadhaan garbaha ay gaadhaanna jumma la yiraahdo saas weeyaan marka limma ulahan jiray nabigu sallallahu alayhi wasallam walahu limma ayaanu imid isagoo ay uu nabigu leeyahay limma
halaba uu leeyahay iyo timo sii daysan bihaa limadaasoo ay ku sugan yahay radacun dharoobid iyo marmarin oo min xinna'in xinna la marmariyey oo lagu dharoobay ayib yuqaalu waxaa la yidhaahdaa bihi radacun min damin aw zacfaraan radac yani dharoobid oo ama dhiig ka yimid ama zacfaraan ka yimid ama xinno ka yimid baa la yidhahdaa saas way macnaha wuxuu ku fasiraya bimacnaa kelimada radac ayuu fasiraya markii timaha wax la mariyo ama dhiig la mariyo ama zacfaraan la mariyo ama xinno lagu dharoobo ayaa la yidhaahdaa dharoobiddaa iyo marintaas ayaa waxa la yidhahdaa radac marka timaha nebiga sal lay slam ayay marsanayd buuri macnaha waxaa halka xadiidkaasi waa xadiis sugan qaybtaa dambe ama lafdigaa dambe ee axmed iyo nasaa'i iyo abu daawuud ay soo saareen ayuu xadiidku saxiix ku yahay bisanadin saxiix buu ku yimi wuxuuna tilmaamayaa in nebiga sal lay waslam timihiisu ay bedelnaayeenoo uu nebigu sal lay waslam xinno marin jiray katan marin jiray waa kaan soo marnay marka in timaha la bedelaayay oo yani xinno lagu bedelo ama katanba loogu daraay yani wax weeyaan ayay axaadiistaasi tilmaamaysaa waana sina sunnada cala alaqal ee loo badan yahay macnaha hada wabillahi tawfiiq وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم